waaba ogtahay wixii oo dhanba waa la socota waa siyaasiyad anigu barooran kuu sheegan kuri ma basaasiyad yar baa tahay waa kuu sheegay long time ago walla waxaan arkaa arkoon naciima brink waxay aragtaa arkoon ما عيال تيك توك بان وان داودا حالتي سدن بلا سودا markaasaad adigu de waxaad haadisaa abargidir leh aad iyo aad warbal wiilkii ugu qornaa galmudug warbal soo wiilka gabadhan raba inay la hadlaan bal hal soo dir wadno ololaya soo dir عادي حتى هدي لو هي هوستا فريسانيا marka la helo waan soo koraya dib male maya way joogaan sig yaa reer galmudugow hawar gidirow saamana waa la rubtiin Dhuusamareeb caasimaduna waa Dhuusamareeb caasimaduna ma Dhuusamareeb waa qalin iyo book ismuujiyaha dumaashi bilanay soo dhawow aa lagu leeyahay already aba hal hees ma ku sharafnaa galmudug dee adigu ma u qaadaysaa ما معناه ما ينشد سان كو عمامة سارنا مايا ونكالا إيجا حناقا إيجا دافنو أنيجا يوالي أي ونكالا ما إيجو درا أنيجا أي واوري ما أديك اللوقا أوجو قادنو لوقا إنت أوجو شو حتى هذا maanto kalena madaxa nafuran annaka madaxa nafuran askari unaada kamarada Assalamu alaykum wa alaykum assalam walaalo big wac kasi way kan annaka unu kala xaq la ugu qaad wareed soo dhawo walaalo waan dhaway walaal qaali sida tahay waa fiicna walaal xaqad joogtaa waxaan joogay Switzerland imsa tirtaa 26 gabadhan qurux badan ku korsaar ma la hadle walaalo gabadhan laakiin de waa meel bay dalbatay laakiin adigu ma la hadlaysaa it doesn't matter waa gabadha cod karka ah ee bilaayada cirka laga soo hidho aduu maxashad badan dabcan ha haya ma inta sunba ku dooqan lahayd walahi horta intaas ugu muhiimsan de gabadha waxa weeyaan gabadh dhaqan leh diin leh waxa weeyaan daacadoo rabta dee imika waxa weeyaan meesha serious baa loo yimid ay gabadh rabta inay wax dhaqato ma garanaysa an mar dhow waxay imaadaan rabaa ma garatay daacadna waa tisoma walaa halkan umaad soo korin inaan lagu arko waxa u soo kortay wax daacad ah nolol daacad ah wallahi inda adayga imkaan ku jooga meesha weligeed xitaa waxa weeyaan dadka life-ka iyo waxaas ma yihiin laakiin waxay soo kalifay waxa weeyaan wixii soo kalifay baa soo kalifay daacadnimada ku soo kalifay kolay naagaraadis bay soo kaliftay waxaan lacag baan soo doonta ma garatay naagaraadis sax oo aan macnaha aan carcar lahayn oo hagaagsan aad iyo aad wax diyaaro welibana wax diyaaro waxaan rabaa wax diyaaro gabadh diyaaroo rabata inay dhawaan guri dhaqato adigu diyaar ma tahay haddaan diyaar ahay maxay keenayaa wadooyinka gaadhay ka adeegin haddaanan diyaar ahayn waa u shaqaysatay soo maaha iska diyaar maaha waa loo tabcaa waa u tacabtay qoyska soo maaha oo waa u shaqaysatay aad iyo aad صح raganimadaada waad leedahay qoys ku maamulan lahayd gabadh saa loo maamuliyo dhowr saa loo maamulaba haa walaal gabadh ma soo maaha waa gabadhu laakiin hawlo badan baa ka dambeeya waan gartay maasha allah كل دوخ الرادين يو قيمة بدن واسكسو شبهدا لكن ما قرني هادو دي waxa ka noqon الله اعلم يواس برنا دور دقيقة لاسك ما برن كرم وقتها لكن waxa la qofaad saacad badan weydo sanad ma baratin ama Soomaaliyeed horta dooqa adiga iskale waxa weeyaan waxaan joognaa ana meesha public ama waqti 3 kun iyo wax ka badan bayna daawanaya
هاهي haddaa xitaa walaac tahay waxa weeyaan waa sugi kartaa dookhaaga waxaa laga yaabaa inuu mid iga fiican soo baxa ma ogtahay ما هو دب ملا أول بما أنت تمي كهرتوبة وفرديو والسوق دق وما فرنا كودي aad iyo aad أنت أبا وحن باري كيتو خيجة marka horta soo dhawo walaal waan ku soo dhaweynaya reerkii aan sitayna dee waan kuu dhigay cimaamada waan kuu dhigay waxaan ka baqayaa laakiin cimaamadaasaan kuu dhigay inaad adiguna dhulka ku sii tuurto innaga isbadinna walaa maxaa tolkiina badinaya innaga tolay iyaguba waa tolkeen walaale soo dhawo mee Soomaaliya oo dhan waa wada tole laakiin waa dhiig balaya haddana Soomaa dal Ay, wali isku sii dhow yahay dalkeena balaadhinayo ayaa waaro su'aal kale ma ku weydiiyaa walaa ha soo dhawo wala xagga diinta sidaa isku tihiin mar dhowda waxaad tiri gabadh diin la baan jecelahay markuu gabadh diin la jecel yahay waa inuu isaguna nin diin la ahaada marka xagga diinta see isku tihiin والله horta sheekh miihi runtan kuu sheegayay laakiin waxa weeyaan alxamdulillah salaada iyo intaas waan ka adagay horta salligayga iyo kitaabkayga xagaa bay isku kiisaaran yihiin waxa weeyaan dad sheekhyaan waan kasoo jira xaafadayadoo dhan baa sheekhiya ama laakiin sheekh miihi waan kuu sheegaya yaa xaafid muhiimaddu sheekh maaha diintu waa qalbiga maaha inaad muhiimaddu gan leedahay oo sheekh tahay aad iyo aad mee salaada iyo waajibaadka waan ka adagay runtan kuu sheegaya intaas alxamdulillah dhaqankaagii Soomaaliyeedna waad haysataa Soomaaliya waxaa jira dad badan oo markay Yurub tagay dhaqankoodii ka tagay maxaa dhaqanka Soomaaliyeed maxaa ka mid ah maxaa ka wada dhaqanka Soomaaliyeed uu badan yahay haddeer waxaad tiri inantaan xulanaya waxaan ku xulanayaa inay dhaqan leedahay marka adiguna macnaha su-aashima dib kugu soo celinaya macnaha dhaqankaaga Soomaaliyeed waad haysataa adiguna dhaqankii ragga lagu yaqaanay haa dabcan dhaqankii ragga lagu yaqaanay waxa weeyaan dabcan haddii ninkaa Soomaaliyeed baan ahay dabcan de haa dhaqankii ragga lagu yaqaanay waan la haysaan oo lahayn أيوة صح ويا صح ma garatay ما شاء الله تبارك الله wax su'aala dee waxaan idin idhi waa hadal bilaa turxaana waa laba qofoo maasha allah amaysina waxaan ku war waa tii ku dhiqi lahayd cirka ku saari lahayd la odhan lahaa ninka naag adag baa ka dambaysan u malaynaya ma istiri king walaa horta way qurux badan tahay maasha allah dookhayga weeyaan waxa weeyaan waa aan waxaan hablaha ku doorto way leedahay horta maasha she's allah very beautiful maasha waxa weeyaan gabadh waxaan jecelahay maariin madow xiga gabdhaha cadcad ma jeceliye xoogaa wax inkastoo horta ismarmariya midabka ilaahay baa bixiya nooca kasta ma garanaysaa midabka caddaan iyo madow waxa weeyaan ilaahay baa bixiya ma garanaysaa maasha allah tabaaraka laakiin waxa weeyaan alxamdulillah she's horta laakiin kingi oo gabadhani waxay u eg tahay gabadh oo dhabarkaaga gadaal aan lagaa toogan karin hadday kaa dambayso ma ogido that is aad very iyo aad important ninku markuu gabadh hadal guursanayo yaqaan weeyaan ha gartayadaaba kula jaraysaa way kula jareen way kula gabdhaha geedka garta lama keeno in adeer dhaqanka gabdhaha geedka garta lama keeno iyadaa maya inta gurigay kaa soo dhisee garta lama keeno soo ma haboonay gurigay kaa soo dhisee guriga laakiin gurigan geedka ka dhicin ma ogtahay waa kac wareedhaa hadda ninka habl su-aal ma u qabtaa wiilka mayo haye wiilka ma qaadato ahee waa qaate haye kingi gabadha su-aal ma u qabtaa ma qaadatayse walahi su-aalo badan baan u qabaa laakiin waxa weyn gaar baan isku waraysan lahaa haye ma qaadato insha allah waxa weeyaan aad iyo aad madaxa dusheeda ay saarantahay aad iyo aad oo lolo goormada hargeysa waa usii socdaa baa tiri miyaase markaa aade walahi waxaan rabaa iminka dhaxanta markii xaggan soo gasha maaragtay inaan tago hadduu ilaa idhaahdo insha allah biidnillah maybe sanadka dhammaadkiisa iminka halkan samar baa lagu jiraa samarka yurub baa la qaatay moogta jawi macaaniska ah insha allah laakiin waxa weeyaan marka xaggan qabowga waxaan necabaa dhaxanta moogtay inaan markaas wax cadceedsadaan rabaa insha allah waa sax hadda cadceedda xaggan hadhowna xaggan haye ma isku darsateen dee balaan sacabiya suga yes dhagka siiya dee qof walba qofka halkaa ma isku darsateen
aa ku darsan yes waxaan I ku follow you back I follow waa you back gabdhihii haddii dagaalka la galana kimistii oo bahasha kale ku daba qaadi lahaa maxay ahayd bahashi maxay ahayd nimanku cuni jireen muqmadda iyo kimista ku daba qaadi lahaa ma fahamti gabadhaas iyay kaa baxsaniyo waa xag iyo xagga waa xag iyo xagga waa xag iyo xagga waa xareeddaa wadhan yaa luuqa isu gala hadda isa salaama waxaan idin leeyahay ka midha dhaliya jacaylka qofkii labadii adigu yur baad joogtaa abreero laakiin inanta haddii hadda guurkaasi xoroobo oo ay isguursataan insha allah biidnillah 600 gabadhaas nagu leedahay waa sadaqatul jaariya hore u socda ما 600 iyo xas lagaagama baahna haddaan isfahamno 600 iyo ka badan anaa siinaya maxaa adiga waa hadiyad maadaama bas anaga laakiin waa khasab way nagu leedahay no anaa wax ka badan siinaya waxaas uma baahna gabadha waxay ka soo cabatay wiil oo ma aragtay waxay tiri haddii qaanda afka laga geliyaan hadlayn oo waxay tiri xataa waa u tuumbaraacay haasaa waa u sameeyey wuxuu noqday balaayasaa usoo taaganoon salaamu calaykum xataa calaykum asalaam ma yaqaano bay tiri ma fahamta bal markaa luuqa isu qoro telefoonka isu qoro whatsappka snapchatka I don't know isla sheekaysta maca salaam insha allah ma santahay adnadii ma santahay shaqaadag baan oo haysaa shaqaadag baan adinka mudan habar macaan idinka mudan always habonita gay adaa laga hayaa maxaa la dhahaa adaa laga sugayaa maxaa la dhahaa feedback ta yaa hanagala dhuuman ayaha insha allah haye salaamu calaykum bye bye ندج إندج حبيبي إندج ندج بل سالو دي كم قرني أنا كنت هيا معا see you